الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قدومية هذه مهتمة كلمة inkastoo anagu Sheekh Axmed Fikri aan la jeclahay inuu kelimadan jeediyo maadaama nin culimo caalim uu yahay. waxa weeye bisha horta Ramadaan ee barakaysan waxaan jeclaan lahaa wax badan wax yar inaan sirriyeysano. bishaan aad iyo aad ugu barakaysan weeye. waa bil rasuulkeena salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi habeenka bishaan ay bilato wuxuu oran jiray waxaa caawa idiin dhashay bil aad iyo aad u wanaagsan, bil la qallaqay oo la furay albaabihii khayrka, bil la xiray shayaadiintii oo dhan la wada xirxiray. laakiin bishaan ayada ah cadowga qofka ugu cadowsan oo naftaadaanan la xirin shaydaankii kaalmeynayay baa la xiray. laakiin aadanaha waxa ugu cadowsan oo ku jira waa naftiisa, sida rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi ba uu noo sheegay acdaa caduwuka nafsuka bayna janbay ku yidhi. cadow waxaa kuuga cadowsan nafta labadaada dhinac ku jirta. jihaadka ugu adag qofku cidda uu la galo waa naftiisa. ilaahay qur'aankiisa markuu leeyahay waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum sublana, kuwa jihaaday oo daraaddan u jihaaday oo jidkeenna ku jihaaday waan hanuuninaynaa, waddooyinkeennan ku hanuuninaynaa. jihaadkaasi ma aha kan furinta la tegayo, waayo aayad madaniya ma aha oo madiine kuma soo degina markay ku soo degtay. jihaadkaasi waa jihaadkii rasuulka iyo asxaabtiisu ay ku jireen oo ah dabtu nafsi wa muxaarabatuha, nafta in la kantarooro oo lala noolamo oo lala diriro. qofka bini-aadmiga marka qofba qofka naftiisa intuu uga adag yahay baa ilaahay uga dhow yahay, aakhiradiisuna uga toosan tahay. rasuulkeena salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi maalintii dagaalkii tabuuk waa magaalo aad uga fog madiino. asxaabtii rasuulku muddo dheer bay u socdeen, gaadiidkuna waad garanaysaan wuxuu ahaa waa la lugeynayey, tabaha ka dhammaaday lugihiibaa dhiigaya. markay soo laabteen baa rasuulku wuxuu yidhi rajacnaa, waxaan ka soo laabanay dagaalkii yaraa, kii weynaa baan u soo laabanay. dagaalka weyn muxuu yahay bay yidhaahdeen asxaabtu, makii midka weyn baa noo wadaa. wuxuu yidhi jihaadu nafsi waa naftaada oo lala jihaado. marka cadowga qofka ilaahay qur'aankiisa suuradda ugu dheer oo ku dhaartay waa suuratu shamsi. wuxuu dhaartay washamsi waduxaaha waalqamari idaa talaaha waalnahaari idaa jallaaha walleyli idaa yakhshaaha waassamaa'i wamaa banaaha waalardi wamaa daxaaha wanafsi wamaa sawaaha falhamaha. ilaahay toddoba jeer muxuu dhaaranaya markaad dhaaratid qofkood baad u dhaaranaysaa. wuxuu dhaaranayay qad aflax waxaana dhab ahaan u khasaaray qofkii xumaanta ku qariya ayadoo naftiisu khaldan tahay oo xun tahay oo u liito isla wanaagsan. falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa buu ilaahay yidhi. naftiinna ha taskeenina ha dhiimina way wanaagsan tahay, ilaahay baa og cidda taqwada badana. marka horta cadowgii ugu cadowsanaa insaanka ee ku tacalluqay oo naftiisa ahaa ma xirna. shaydaan haddii la xiray naf oo ah ardayad shaydaan ugana dhow iyo aadanaha ugana saamayn badan oo ah daabadda keliya ruuxda iyo caqliga ay allaga aakhiro ku gaarayeen, najaaxaada adduuni midka aakhirana ku gaari lahayd ma xirna. waxaa loo baahan yahay marka bisha barakaysan oo ilaahay uu barakeeyey soonkeeda iyo cibaadadeedu inaysan naftuna dhaafin. wuxuu yidhi rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi man lam yadac qawla zuuri waalcamala bih falaysa lahu min allahi an yadaca sharaabahu wa طacaamuh. wuxuu yidhi qofkaana hadalka zuurka ee xun aana ka tegin iyo ku camalfalkiisa
ilaahay agtiisa wax ay wadaynayso ma jirto inuu cuntadiisa iyo biyihiisa ka tago soonkaay wax ajara iyo wax fadhiya oo aanan gaajo ahayn aad ka faa'iiday ma jirto wuxuu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi axadkiin hadduu sooman yahay yuusan ama qofkuu maxaan ku yidhahdaa erayo uusan jeclaysan ku yidhaahdo ha yidhaahdo anigu waa soomanaha bishaan waa bil barakaysan rasuulkeena salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu sheegay cibaadada ramadaanka waajibka ah waxaa la laalaabaa 70 jeer bay ka fadli badan tahay waajibka kale bishaan ramadaankaahi habeenkiina waxaa sunneeyey habeenkii qofka inuu qumo maalinkiina soomo wuxuu qabtay waxa ugu wanaagsanna waxa weeye qiraa'atu alqur'aan wa sadaqa inuu qur'aankana akhriyo sadaqana uu la baxo waayo qofka ramadaanka markuu afriyo buu rasuulkiisa qof saama qofka hadduu afriyo ajarkiisuu buu leeyahay hantida iyo dhaqaalaha maalintaad haysatid waa fici masaakiinta waddada maraysa haddaad miskiin weysid xataa intaad gurigaaga ku diyaarisid geed waa mawsim waaye wax walba ay xilligay leeyihiin businessku xilligay leeyihiin cibaadada iyo khayrka iyo barakada bisha ay bulaaso waa bishan ayada ah rasuulkeena salawaatu ullaahi wasalaamu calayhina wuxuu ahaa mid aad iyo aad deeqsi u ah wuxuuna ugu deeqsisanaa bay tiri caaisho bisha ramadaan buu ugu deeqsisanaa marka shaqadanna inaan ka dhiganno horta kadfu leela can alaakhariin inaan dadka dhibkeena horta ka hayno waa shayga koowaadka haddii dhibkaagaa dadka u gaaro soorkaagu macno kuma uu fadhiyo ziyaado horta iska daa lafihii lafaha waxaa lagu ilaalinayaa soorka lafihiisa waxaa lagu ilaalinayaa kadfu leela can alaakhariin afkaaga iyo ishaada iyo uurkaaga iyo maxaan ku idhahdaa addunkaaga intan inaad qof muslimka aad ka haysid oo qalbigaaga uusan shaxnaa uusan ku jirin waayo dadka la xoraynayo ramadaanka rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayhi waa la xoraynayaa buyiri dadka ramadaanka waa la xoraynayaa ilaa qof shaxno qabo qof walaalkiis cugdad qofay ugu jirto moogiye marka ilaa horta qalbigaaga iyo xifdi iyo xasad iyo xumaan iyo dhibaato uu ka tagsan yahay qalbi nadiif adduunkaagina dhib aadan ku geysanin taasi waxay ilaalinaysaa lafihii ramadaanka taraawiixdii salaada habeenkii la tukanayey maxaan ku idhahdaa qur-aankii la akrinayey rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi qur'aanka ramadaanka jibriil waa uu la muraajacayn jiray dhowr jeer buu la muraajacayn jiray rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxa weeye marka qofku ugu yaraan kan ugu yar waxa ugu yar oo ramadaan qur'aan la akriyo waa inaad hal khidma akhrisaa maalinka halkiis inaad akhrisaa laakiin dadka salafkii saalixa ahaa imaam shaafici raximah allahu tacaala oo kale laba jeer buu qur-aanka khadimi jiray yacni 15 saacadood oo waqtigiisa ka mida ramadaan qur-aan buu akhrin jiray imaam shaafici maxaan kale raximah allahu tacaala dadka salafkii la midka ahaa ramadaankana salafka waxaa lagu yaqaanay in aysan indhahooda habeenkii badanaa aysan isi saarin waa 30 maalmood ku jirnaa inta saacadood soo jeedno waxaan ku soo jeednana aan la garanay moodeelka markaan qabsanno moodeelada qur-aankii baa ka buuxa sooma maanta waxaa laga yaabaa intaasoo saacadood aan moodeelka iska hayno laakiin juska meeqaa lagu akriyaa 20 ilaa 30 daqiiqo baa maxaan ku idhahdaa juska lagu akriyaa hadda haddaad 3 saacadood moodeel fiirin lahayd meeqa jus baad akrin kartaa karo oo quraanka akhrin jiray kan kalena ugu yaraan inuu jallaadkii saaxiibo asbuucii ku dhameeyo oo dhowr jeer quraanka u dhameeyo qofka aan aqoonin oo quraanka uu dhinayo quraanka ilaahay quraan marka leeyahay macnaheedu ma aha baqara ka bilaa garabnaaskeed qul wala ila quraan waa saddex qul wallahi waxa dhiganta quraanka dhan فكيف هذا أخرس المانتا ما يقول والله هذا أخرس إذا كنت كتاب هذا أخرس وهو فاهمك إذا محاكرة حافظ لا كتاب مقروب قل والله أدري الله يسرق مني القرون والقرون كله كفار حتى فانا قلناه مجرى انت صدقت فهم الاسم من قرأ حرفا من كتاب الله فله أجر حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع عنه 10
درجات لا أقول ألف لام ميم حرف بل الألف حرف واللام حرف والميم حرف برسول كير وغير قصة حرف كتاب إلهي كافية وحا إلهي نسيا كلام أجر وحنا كذا إيا كلام دنبي وحنا قرية لا كلام درجة مع الأرابي على الفلامين وهل حرف ألف هو حرف لام وحرف ميم كل حرف ميم ألف لام ميم كلية تصد درجة يصد حسنة يصد الدنيا لا باقية فكيف محاضر مليسا سورة الإخلاص هذا حسيب كل الحسيب وحوية كوست بقارة مباهنا جودي كلا وضعنا إلهي عبادتيسا يقضاء الروح قلت صدح ما جوك الروح جر يعقل الروح ما بدأ قيمة بيان الروح لاهي وحي تقرطاه يا عبادة الإلهي عبادة الإلهي جري على ذلك ولا لعبيسا العقل هذا مرة وقت هذا مرة حتى ظهار شرط الله ذكر الإلهي ظهار شرط الله ألا حتى يسقني ألا سوق مرية ألا شقايا على عشتا فما كان واحد فعل عليك ارتاح ذكر الإلهي تسبيح التعليم واحد محطوح لكن رمضان واحد وصل للبلد قرآن كأيا وصل للبلد مركا اللفظة إذا يتينا واحد كلا دردار ليا موسم كان خير كبلد ومرتع من مراتع الجنة ودار الجنة لا إلى أن نفق صارين وأن نقرنا صدق كمال موت وحن لندن وصدق كانوا كل كلمة بلادك لو ما في الدنيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته